wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Ciraaq. Warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Cabdirasaaq Cumar Maxamuud. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cabdinuur Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa waxa ay gaareen caasimadda waddanka Ciraaq ee Baghdad, waxaana garoonka diyaaradaha ee Ciraaq ku soo dhaweeyay dhigiisa wasiirka biyaha dalka Ciraaq injineer Mahdi Rashiid Al-Hamdani. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxa ay ka heleen martiqaad rasmi ah wasiirka biyaha Ciraaq si ay uga qayb galaan shirkii koowaad ee biyaha caalamiga ah oo ka dhacaya magaalada Baghdad ee xarunta waddanka Ciraaq. wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cabdinuur Cabdi iyo wafdigiisa ayaa inta ay booqashada ku joogaan magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq waxa ay kulamo la qaadan doonaan madaxda wasaaradda biyaha Ciraaq iyaga oo ka wada hadlaya iskaashiga dhanka maareynta kheyraadka biyaha ee labada dal. dalka Soomaaliya ayaa xilliyada qaar waxaa ka dhaca abaaro baahsan saameyn ay ku leedahay biyo la'aan markaa soo wajahda dadka Soomaaliyeed, iyadoo xilliyada qaar marka roobka uu da'o webiyada ay ku fatahaan. Cabdirasaaq Cumar, VOS TV, Muqdisho.